السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولالها وإيد السلام يا ميل كستو دنيا دافية كيكو سوغنتين سوري دوادا بان idin leeyahay ما شاء الله تبارك الله. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaa wada nabad qabtaan, caafimaad qabtaan, bashbashiyo barwaaqo aad ku sugan tihiin ayaan idin wada rajeynayaa biidmillaahi kariim. annaguna sidoo kale alxamdulilah rabbil caalamiin ma sha allah. walaalaha nagu cusub waxaan ka codsanayaa inay subscribe-ka iyo share-ta like-ta wax walba dee arrimahaas oo dhan ay gownaga ka siiyaan biidmillaahi kariim. waananu idin soo dhaweynaynaa gacmo furan, qalbi fayow iyo niyad faaraxaan idinku soo dhaweynaynaa aniga iyo walaalihii hore usii joogayba. waayahay maxaa maanta miiska inoo saaran? maanta qiso ayaa miiska inoo saaran, sidii caadadu inoo ahayd. qiso cajiiba baa miiska inoo saaran. in badan oo badan aad qosli doontaan, in badan oo badanna maxay ahayd aad ku soo celceshan doontaan oo aan ogahay taasoo waayo aniga intii markii laysoo gudbiyey intaan dhegeysanayay lagama sheekayn karo. aad iyo aad baan ugu qoslay. waa loo baahan yahay. wax badan baynu qiso murugale kasoo dhegeysanay, wax badan baynu qiso qayayaab la soo dhegeysanay. marka waa qiso farxadahoo qosolahoo maxay ahayday aad u qosol badan weeyaan. insha allah waxaan rajeynayaa walaashaasina inay noo soo gudbiso qisooyin badan oo lamida qisooyinkan sida ii sheegtay inay hayso qisooyin fara badan. haddii aan gudagalo qisada tan, waxay tiri walaashana meel baan ka shaqaynayay. waxay joogtaa western wallka joogtaa, meel kamid ah wadamada reer galbeedka ayay joogtaa. meel ayaan ka shaqaynayay bay tiri. meeshii aan ka shaqaynayay anigoo shaqadeydaas de iska tago iska soo noqdo aana iga qasnayno alxamdulilah rabbil caalamiin alxamdulilah rabbil caalamiin ku jiro aanan bilaayo qabin ayaa waxay tiri dee hadiyo jeeraalana dadkeena islaamka ahi ama soomaalida ahi waxbaynu ka dhegnugu lahayo wax walba waxaan jeclay inaynu dhugano eegno. ayaa waxay tiri meesha aan ka shaqeeyo waxaa yaala xagga hore receptionka agtiisa waxaa yaala qoraaladahan lagu kaydiyo lagu ay ku jiraan kalluunka nool ku jiraan biyaha iyo biyaha iyo cuntadooda iyo dhagxaantooda iyo leydhkooda wax walba loogu maaragtay loogu guro kalluunka la goldfishka lagu rido halkaa dee quruxna kalluunkana dee lagu xanaaneynayo halkaana dee ay ka noolaanayaan. waxay tiri kalluunkaas mabashu aysto waa iska sii dhaafaa waa iska soo dhaafaa waa iska sii dhaafaa waa iska soo dhaafaa. maalintii dambeba waxay tiri waxaan arkay waxaan maqlay bay tiri kalluunkii laleeyay alla kalluunkii baa iscunayo, kalluunkii baa gaajoodayo wuu iscunay. haddaan joogay bay tiri waan cararayo waan soo eegayo waxaaban arkay xabad kalluunahoo laftii uun dheereeda dhabarkii ay ka harsan tahay, intii kalena ay cuneen kuwii kale meesha ku jira. waxay tiri waan qaracmay, qalbigay xanuunay, waan murugooday waan naxay. kalluunkan maxaa waxa loo siin waayay? allah daba saad yeesha. waxay tiri qalbiga ay xanuunay inantii. waxay tiri islaanan garanayay oo caddaan ahayd ayaa waxay lahayd kalluun misaasoo kale qurarad ugu jiray kalluunka iyo quraarado oo ku rabaysanaysay. waxay tiri islaantiiba kalluunkii ka dhindhintay. dabeedna waan u tego waxaan ku iri ayaa hiblaayoy cuntadii kalluunkaaga aad siinaysay ayaan rabaa may siin kartaa? waa tani qaado bay igu tiri. waxay tiri kalluunkii baan soo qaaday, cuntadii baan soo qaaday, kalluunkii baan ula imi. habeenkan subaxii baa shaqadana waan ku guraa, markaan ka soo baxayana waan ku guraa. cuntadii baan ka dhargiyey kalluunkii baa naaxay ama cayile qofka siduu yaqaano. waxay tiri dee qurux buu u go-ay kalluunkii. ila waa kalluun habeenkiina la fiirgaraynaya, galabtiina la fiirgaraynaya, subaxiina la fiirgaraynaye kalluunkii baa kala ayaa kashbacay oo kala ballaadhay. waxay tiri kalluunkii markuu cuntadii cunay wuu naaxay, overweight buu noqday. overweight markuu noqday mid baa dhintay. wax badsaa wax beel bay kuu tartahay, mid baa dhintay bay tiri. aniga waxay tiri kan dhintay mabaan daraysaniyada sidii umaan ugu gurayaayo kalluunkaasoo mar dambe gaajoonaya indhahaaguya qaban baa qalbigaabay xanuunay. waxay tiri markii kalluunkii xabadi dhimatay ayaa dadkii oo dhan loo yeeray shaqaalihii. kalluunkii maxaa ku dhacay? kalluunkii yaa siiya cuntada kalluunka? hiblaayaa siisa cuntada, hiblaayaa fiidgarayso ayadaa cuntada u keento siisa. yaa ku yidhi sii demoji. waxay tiri waata laga yeeday, waata receptionka la yeeday laga qabtay meeting meel lay fadhiisiiyey la yidhi waxaaba dee maadhir baa tahay oo kalluun dhan baaba dishay oo madaxaaga dee u dhintay. kaale baa layidhi waa lasoo fadhiisiiyey bay tiri. waa laysugu yeedhay meeting baa laga qabtay, waa lasoo fadhiisiiyey.
waxa la yiri maxay ahayday maxaad samaysay ma ogtahay waxa lagu soo firsiyay halkan waxaad dambigaad gashay intuu leeyahay dambigan galay muxuu yahay way tir waa baslad bila qadaha dambigan galay muxuu yahay dambigaad gashay kalluun baad dishay xabad kalluun aad dishay naf dhan baad goysayo xabad kalluun aad dishay ma ogtahay dambigaas culayska intuu leeyahay naxay wuxuu ku hadlayaa de kalluunku gaajoonayo anigu aan fiirgareynay kalluun gaajoonayo anigu oo maxay ahayday de aan waxba haysanin ba ayaan maxay ahayday siinayay bay tir oo gaajoonayo de halka is cunayba soo kiis cunayba kalluunku gaajo is cunay maxaad iga rabtaan waxay la yiri dhageyso dambi baad gashay weyn baad gashay lagu yaa ku dirtay oo kiido si cunto si miyaad garanaysaa timetable-ka cuntada lagu siiyo imise goor baa la siiyaa yaa ku ogolaaday fasaxa ku sii ilaa waxay tir wax badsaa wax beelba ku tartaqayaaba naabal amarkan iyo nasla daniyada laqadan eeg oo kalluunkii anigu aan u naxariistay halka ku gaajoonayay aan cuntada siiyay ayaaba aan dambi ku galo leeso fadhiisay halkan ha kalluun baad dishay xabad dhan oo kalluuna kugu dhimatay oo dambi baad gashay kiiska lagu qaadayo intuu leegay ma garanaysa ma garanayo tirde anigu kalluunku u gaajooday waad ogtihiin isagaaba is cunay xabad dhan oo kalluuna cunay maadaama gaajooday daanu islaanimo iyo muslimnimo aan u fiirgareynay xayawaanka halka ku xidhan biyaha ku dhex jiray wuxuu cunaba aan haysanina gaajo isagoo isu cunay laguma ogole baa la yiri dambi baad gashay fasax uma haysatid in aad kalluunkaas halkaas la dhigtay ee dadku dhigeen ee waqtiga wax lagu siiyo ee waqtiga maxay ahayday waxaan wax lagu siinin inaad adigu noo gacan dhaafto almuhiim ood fiirgariso gabadh yahay dambi weyn baad ku gashay maxaan hadda imika yeelaa bay tir gabadhi maxaan bal waayay yeelaa ma kalluunkii baan soo magdhabaa ma lay xidhayaa ma dambi baan galay maxaan sameeyaa ii sheega maanta waa lagu dhaafayaa baa la yidhi maadaama aadan garanaynin qaynuunka u yaala waa lagu dhaafayaa laakiin mar dambe agtiisa ha marin oo ha isugu dhawaanin meel uu joogo iyo meel uu jaan iyo ciribtoona dhigo laguguma arki karo waxay tiri marra waan naxa marra waan qoslaa yacni kalluunkii anigu aan asxaanta u sameynayay ee halkaa ku jiray ayaan maxay ahayday ayaan dambi ku gala oo laygu yidhi dambi baad ku jirta crime naxdin iyo yaab iyo amankaag waxay tiri wax badsaa wax beel bay ku tartaa haddiiba ilaahay iga furtayba orodkaan qaaday ilaahunba ogabay tiri xafarkaan qoday xafarkaan qoday afarkan qoday sidii baan kaga tegay de shaqadeedii waan iska shaqaysanayay laakiin hadduu dhimanayo iyo hadduu is cunayo iyo hadduu indhuhu baktiyayaan toona maan eegi jirin dacwaaba laygu soo oogay kalluunka aan cuntada siiyey ee miskiinka ee masaakiinta aaba dacwo laygu soo oogay naxdin waan qayayaabay bay tiri mar waan qoslaa mar inaguna haddaynu Soomaali nahay waxaynu nahay dad aad u qalbi jilicsan oo calool jilicsan oo samafalka aad ugu fiican aad ama qof ha ahaado ama xawayaan ha ahaado samafalka aad baynu ugu fiican nahay وين wax walba shantaynu la gelayna dadkana qaynoonay u dhigteen ruulal bay u samaysteen maxay marka meesha la soo dhigayo kalluunkan meesha la soo dhigay ee biyaha ku dhex jirta waxaaba cunto u aba la yiri macdanta dhagxaanta ku hoos jirta macdantu ka cunayo aaba cunto u aba uma baahanaba in de overfeed maalin kasta wax la siiyo adiguna de overweight baabad ka dhigto overfeed baabad ka dhigto de cuntadii waad ku gurto no limit waa sida markaynu soo iibsano dhirtan maadarta guryaha la dhigtay nool aniga haddaan soo iibiyo geed nool haddaan soo iibsho maalin kasta biyaan ku shuba geedkiiba wuu dhintaa biyahaasaa dila wax kasta haddii laga reer la hoogay geedka waa ka qalalay ma dhahdaa ku dhura waan ku dhuraa oon marka qisada yar qosolka badan la baan idin la wadaagayay aadna run ahaantii aniga iga qoslisay in badan baynu qiiroono inuu yaa isku boqnay ويرتاح هو very short story لكن وقصل كذا بدن يعني وحبا بينو ku qaadanayna de dumar hayo meelaha ka shaqeeya bal shanta hal gelina hadii aad lacala idin ka soo hor baxdo de sheekada oo kale shanta hal gelina hadda aragtaan kalluun meel ku dhimanayay hadda aragtaan bisada meel ku baqtiyay iyo hadda aragtaan maxay ahayday shimbiro meel jooga midna de hadoonina ilaa amar heshaan oo amar u qaadataan marka wax waliba waxay leeyihiin qaynuun wadamadan inay joogno wax walba qaynuun baa loo samaystay way iska joognaa laakiin de qaynuunadoodii baa lagu soo baxayaayo de maxkamad baa la geyn lahaa inantaas maxkamad baa la geyn lahaa crime weyn bay gashay oo de waxay dishay naf dhan bay goysay oo dad meel dhigteen marka way sigato gabadhii managerada ahayd baa de ka qalaysay qolo kale haday tahay waxaan ku dhinantaa waa tarxeel baa lagu qaadi lahaa marka maxay ahayday
ساسا إن شاء الله إذن كتجيا قصة يربى إذن لو ذا جاي آد بيقص لسي مركي آد يقص لسي وحين بالورا لها جي يدليرت هذه أنت بدل maxay ahaydey aad isla baroorateen aad isla qiiraysan tihiin bal ka daba geey intaa yar ka daba tuuro ha qoslaan isku mar in la iska farxo niyada iyo qalbiga iyo qulubta waana lagu daayahaa tabaan qosolka faraha badan la ogaada intaasaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba waqtiga idin timaadaba waqti habboon waqtiga dhageysataanba waqti habboon allah idinka dhigo ama daawataanba insha allah sidaan hore u sheegay subscribe-ka like touch comment-ka iyo isla garanaayadii oo dhan haylaawina waa dhankiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu